daawadayaal aad ayaan idin salaamayaa. Magacaygu waa Cabdulla Dara. Waxaan doonayaa inaan warbixin kooban oo ku saabsan wadanka Cumaan idinla wadaago. Adigoo muwaadin Soomaaliyeed ama qof kale oo Soomaali oo afka Soomaaliga ku hadlaba haysana baasaboorro kala duwan sida ugu quman ee aad ku aadi karto halkaasi. Si gaar ah waxaan uga hadli doonaa baasaboor Soomaaliga. Mar ayaan damcaynan aado dalkaasi, balse hawshii aan halkaa rabay inaan ka sii ambaqaado ayaa meel kale iiga suurooday oo wadankaasi markaasi ma aadin. Balse waxaan in badan xogteeda baara ama in badan aan arrimaheeda aan baarbaaraba waxaan ogaaday in dadka Soomaaliyeed wadanka Cumaan aad looga jecel yahay. Caasimadiisu waa Masqad, magaalada Soomaalida ugu faraha badan ay degan tahay waa magaalada lagu magacaabo Salalah. Salalah waa mid ka mid ah magaalooyinka ugu dalxiiska badan xilliyada qaar oo dadyooga ku sugan wadamada Carabta oo dhan iyo bariga dhexeba si weyn ayay u yimaadaan. Magaalada Masqadna xoogay way kulushahay, maciishadeeduna waa qaali, balse dadku waxay aad u jecel yihiin Salalah oo ah meel jawi degan oo dadka Soomaaliyeedna ganacsiyo aad iyo aad u waaweyn ay ku leeyihiin. Waxaa la sheegaa in Cumaan oo dhanba ay tahay meel aad u kooban xagga siyaasadda haddii laga hadlo ay tahay mid kooban, balse dalxiisayaasha ugu faraha badan ay booqdaan dalka Cumaan. Waxaa la sheegaa oo kale in dadka Soomaaliyeed ay ka yimaadaan marka ay doonayaan dhanka Soomaaliya ka yimaadaan xagga badda xaggaas iyo Boosaaso. oo waxaa la sheegaa in Boosaaso iyo Cumaan guud ahaanba ay isu dhow yihiin. Xagga fiisaha oo kale haddii aan fiirino xagga fiisaha oo kale aad ayay u fududahay oo waxaa jira siyaabo kala duwan oo qofku uu halkaas ku aadi karo. Waxaa jira arinta ugu fudud ayaa waxay tahay arin dalxiis oo kale. Haddii qof qaraabadaada ah ama eheliyad isu dhowdihiin uu joogo halkaasi wuxuu ku soo saari karaa fiisa la yiraahdo booqashada ziyaaraadka. Sidaas la mid ah waxaa jirta arin kale oo iyaduna fudud oo lacag aad u kooban ay ku baxdo, taasoo ah inaad ganacsi ka furato magaalada aan ilaahda wadanka Cumaan. Halkaasna ganacsiga markaad ka furato waxaa ku fududaanaysa inaad hesho fiisa markaasi aad ku aado dhankaasi oo lacag aad u fara badanba maaha sida markii aan xogta baadhay. Sidoo kale arrimahan baan ku dhex jirayba oo waxay lacagto gaadhaysaa ilaa 2200, mararka qaar ayayba ka yaraataa xilliyo kala duwan. Haddaba intii aan xogta baarayay waxaan ogaaday dadyo fara badan oo asxaab kala ka yeeshay xaggaasna ay ii sheegeen in nolosha guud ee wadanka Cumaan ay tahay mid lagu noolaan karo marka laga hadlayo Salalah oo Soomaalidu ay u badan tahay. Xagga Masqad oo kale ay yara tahay qaali maadaama ay tahay caasimadda wadanka. Si guud wadankaasi qofku hadduu tago waxyaabo kala duwan ayaa jira oo dadku ay u kala tagaan halkaasi. Soomaalida Salalah ku nool oo kale shaqooyin iyo wax la mid ah ay u tagaan, kuwa Masqadna arrimo kale ay u joogaan oo caasimadii oo waxyaabo fara badan oo laga shaqeeyo ayaa jira, balse shaqadu ma badna sida aan xogta ku helay. oo waxaaba halkaa buux dhaafiyay dadka Hindida iyo sidoo kale Bakistaaniyiinta iyo sidoo kale kuwa wadamo kale oo shaqooyinka wadamadooda ay aad u hooseyso ka yimi. Haddaba waa ay cidda idin soo saaraysa fiisaha ama ka caawinaysa. Waxaa jira shirkado ku sugan dalka Cumaan oo qofka muwaadinka Soomaaliga ah baasaboorkiisa waxaa loo soo diray isagoo PDF ah. Sidaas ayay waxay ugu fududaynayaan in ay dokumentigiisii iyo xogihiisii intay buuxbuuxiyaan muddo weyn ilaa 2 week ayay qaadataa oo anigu qudhaydu waan isku dayay. Waxaa sidaas si la mid ah jirta in ziyaaraadka oo kale oo booqashada oo dalxiiska oo iyaduna ku soo baxay muddo 4 beri sida aan xogta ku helay, balse waa waqti kooban oo haddii waqtigaas uu ka dhaco waa inaad guud ahaanba wadanka ka baxdid. Saaxiibayaal, guud ahaan Cumaan ama dalka Saldanada Cumaan waa wadan jawigiisu degan yahay, waana wadan dadyo fara badan oo Soomaaliyeed ay ku nool yihiin, waana meesha kaliya ee wadamada Carbeedba Soomaalida aadka looga jecel yahay. Cumaan ma jecesha inaad booqato? Haddii aad markaas waxaan ilaaway oo jiro oo aad rabto inaad halkan ka ogaato qaybta commentiga igula wadaag. Saldanada Cumaan waxaa jirta mar aan damcay sidaan horeba idinku soo sheegay inaan aado, waxaase aad iyo aad ayaan warbixinteeda intii aan baarayay. waa wadan aad iyo aad u fiican oo welibana dadka Soomaalida aad looga soo dhaweeyo. aad iyo aad baad mahadsantihiin saaxiibayaal. halkan aad naga daawanaysaana warbaahinta Hogol News.